ani way marjiyeen silig bay igu xidhay marka geed bay iga soo luleen markaan dhowr daqiiqo ku jiray ayay iga sii daayeen markay ay u maleeyeen naftay inay show qabatay ayay iga sii daayeen markay iga sii daayeen ayaa waxay igu dhaheen naaya hadaan ama wan ku dilaynaa ama hadda waxa la waxaanu ka codsano noo yeel. Sealed off in the world, the armed conflict raging in the Ogaden region of Ethiopia goes unnoticed. Such information as we have comes primarily from courageous refugees and military defectors who have found their way to Kenya or Yemen. Most fleeing the region end up in the sprawling UNHCR-run Dadaab refugee camp in north-eastern Kenya. hadda waxaan imaaday qof kaca oo wadankiisii intii laga soo xiray oo xiritaan jeel 2 sano iyo badh ku jirtay jeelwadeen la soo xiray oo la soo dirdilay oo la soo kufsaday oo diradada carar iyo silci ahaankaagii xooti ahaan baan imaaday dhadhaaf ninkii meedka aan saawayay saamarkaan waayay in badan aan hayay ninkii meedka ninkii meedka man hayn kar waa iga dhacay ay daalay inaan daalay dig igu yiri waan dhigay way soo qaadeen aniga bacbay soo iska dhig bay u dheen way dhigeen bacbay soo qaadeen basbaas kurkay galiyeen xarigana bay kurkay galiyeen waan miir beelay markii baadana fayl iga galeen ani ay ku sadeen waxay isku dayayaan kii xataa ay dilaan inayna sheegin in la arka mooyeen xataa qaar waxa jira intay laayeen meel alla meel ay ku rideen iyo meel ay geeyeen la waayay haday doonaa musqul markii dambe musqul dad ay ku rideen baa leelay waxay u sameynayaan maxay ahayd waxay oranayaan waxa tiin ogaadeeniyaan waxa la dhaho ayaan tirtiraynaaba dhulkanba waa ka tirtiraynaa ma rabno shacabka ma rabno shacabka waa la gumaadaya ugu jiray maxaa wana la kufsanayay wana la dilayay wana la kufsanayay kufsiga u badnaa kufsiga ma hadlaysid dameertii la soo gaaray la iska kufsanayeen baad adduunyada sideeda kale un baad tahay waa lagu kufsan ma intii lagu soo dareeriyay galbarkii la soo bixiyo doodo la soo bixiyo mid iyo nin lagu aagana la kufsanay kuwii lagu shubay indhoole indhaha beesha in lagu gariiran gamcuhu ku gariiran gamcuusaas ana markii la soo daay gamcuusaas bay lahaayeen ilaa oo layla la bariyo qardhaas la dhigo culimo la fadhiisiyo saas bay lahaayeen gamca anigoo saa u horgariir jeelkadiisa gacanta la soo qabto. Ethiopia sits at the heart of the Horn of Africa. The Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front, the EPRDF, have been in power since 1991. It is a brutal dictatorship which suppresses the people, rules by terror, and violates fundamental human rights. The Ogaden region in the southeast corner of Ethiopia borders Djibouti, Kenya, and Somalia. It is a dry, arid land, desperately poor, but due to the discovery of oil and gas reserves, it is potentially one of the wealthiest parts of the country. way ka xistaan jeelka way geeyeen marka way marjiyeen oo waxay igu dabeen xarig silig ay igu dabeen marka in fara badan markay dabi jireen barigi dambana jeelka ii daayeen gaariga isaareen waxayna igu sameeyeen xarig wax la dhaho
weyn oo laga jeexay laastig oo saal looga jeexay in baabuurta shaagooda ay ila dhaceen wajabow la dhaho dhabarka igala dhaceen halkan bay igala dhaceen gamcaha igala dhaceen waqtigii 5 gabdhood baa la raaciyay oo goobta wada joogno gabadha ugu roon 19 bay jirtaa ta ugu yar 15 jir bay waxay ka dhigayeen jirka meelihii ay jabow kaga garaaceen iyo madaxa meelaha ay iyaduna qoriga shubkiisa kala dhaceen iyo meelo fara badan oo madaxa dhowr meelood bay ka jabiyeen markii dambe gabdhihii ka jabeen dhar way ka jeexjeexeen baatigii shiidka way ka jeexjeexeen iyagoo waxay keeneen xabad go'a ay gabdhuhu saa isugu duubeen markay saa isugu maraana ay ka jiidayeen xabsiga markaan ku jiray kur oo way iga dabeen aqnaha way dabeen waxay ahayd qoriga way binadkiisa hore ay jirkayga la dhaceen waxay ahayd jirdil badan la igu sameeyay koronto madaxa way iga saareen lugu iyo gacmaha ay iga garaaci jireen dhibaato badan ayaa la kulmay وانا رترين جري ترانا لغو حرين جري ترانا لغو سودين جري وان حساب سنين ترانا لغو سودين جري ترا عصر كي ماركي تبدل لغو سودين دي تبدل نلو سودرية وانا رترين جري waxaa markay gabdhihii markay xireen ay meesha geeyeen xabsiga ahayd qaarkood bay naasaha ka gooyeen qaarkood bay silig ku dabeen qaarkood bay qudhaba ka gooyeen ama intay dumarka u soo galaan bay dhahayaan aan kufsanayna marka tii kufsiga ama marka ka diidaade in uu tiraahdo anigu diintayda iyo diinta islaamka annagu todobaan ahayn meesha markaan ku jirno qol waxaan kaga jawaabay qol yar oo dadka wixii taga inaan la soo daynin ay ugu tala galeen ayaa annaga markaan geeyeen dad fara badan oo hortana ku jiray way gowraceen oo kulli say u dhanaayeen wax marka dadka gaajo la baabay la dhaho oo isagoo meeyda xashiishka ay ku wada tuuraan iyo waxa iyagu nafta ka gooyaan baa dadkii marka naga horeeyay annagana markaas todobadana markii naga geliyeen meesha waxa ruux meeyda yaala iyo waxa meesha siday taayba maleyn meys say u agta marka dad meel noocaas oo wixii gara marnaba inayna soo deyn ay ugu tala gashay dad adigu dhalinyaro ah oo yar yaroon baa laakiin daadooda ma qiyaasi karo hadda intaa baan ma dhigi karo laakiin wax 20 gaadhay ma lahayn dad yar yar baa annaga iyo dadka meydka markaan afar bari markaan meesha uu meydku naagilay ayay subaxii dambe naga qaadeen meel suuq oo meel wada baabuurtu ay maraan oo jid ee dhigay ONLF was driven into the bush, from where ever since they have been waging a guerrilla war. xoolo magaalana dukaamana ku lahayn baadiyahana xoolaana ku lahayn dukaamadii marka way naga xasuuqday oo wixii xoolihii magaalada ahaa way naga wareegtay xoolihii dibadda ahaana gibir wax la yiraahdo ayay nagu yeelatay oo naga qaatay markii dambe hantigii geel iyo arib iyagii kulli way kaxayeen iyo awr wixii adu geel ahaa meesha reer ku haystay way kaxayeen arigina ilaa 20 neef ay ka qasheen walaalkay oo iga weyn oo iskoolka dhiganayay bay dishay iyadoo iskoolka isagoo ku jira mayna noo sheegin wixii soo kacayayna rabin wixii wax barasho ku jirayna rabin wixii aqliyaysanayna rabin wixii wax garad ahayna rabin marka cunug yar oo soo kacay oo wax barasho uu dadkii dhalay gashaday oo wax baranayay waa marka inay wax barashadiisan ka xumaadeen iyo waxa waxay ku dileen sabab mayna noo sheeg mar rabaan wixii wax barta mar rabaan wixii wax barta inuu iyaga waxyaalo ku keensaday ka yaaban yihiin oo mar rabaan wixii wax baranay reerka nagaan joogay markii ugu horeysay reerka nagii amin salaado hore gaarka naga qabteen gudbay nagu bilaabeen kor bay noo wada saareen walaashay oo iga yar halkii ay ku dhimatay oo lagu dilay iyo laba wiil oo kale oo adeeray ah halkii bay ku dhinteen marka waxa dhacay waxba ma dhicin ciidamadu iyaga dadka aasaasan dadka shacbiyada ba aasaaso ugu soo bixeen dadka shacbiyada bay gumaadayeen adduunyada ka qaadayeen
xoolay ka qaadiyeen aqalay ka gubayeen anigoo umul ah oo 7 habeen beri umulan yaanku hal qabsi waxay ka dhiganayeen maxay ahayd waa kan shacabka tuugta maxay ahayd aanu baabiinayna ay waatiin waanu rogaynaa ruux kama tagayno mid kama dambaynayno wax noocaan bay ku qalbeeyeen. Since the 1992 massacre, the region has been under the Ethiopian military. inta ka hawlgashada ciidan socday ahaayeen ciidanka socdana biyi iyo baadka oo qaataan mooyaane magacyadoodii iyo sayiin anagu mana kala garanay kolka niyo goorisku noo yimaadaan wayna garaaci jireen wayna dili jireen wayna burburin jireen xoolaha way naga qalanayeen kol kun bay ku imanayeen kol 500 bay ku imanayeen kol 200 marka ay noo yimaadaan salaada hore na galaan anagoo hurudnaayayna galaan markayna galaan reerka marka hore gaadhkay ka qabtaan markay gaadhkay ka qabtaan reerkay soo dhex galaan reerka aqalada laab iyo maxay ahayd dadka oo qoriga dabadiisa ay la dhacaan dadkii oo hurdo qoriga dabadiisa ay ku toosinayaan ay la dhacaan nimanku duurka way joogaan banaanka way joogaan waxay naga doonaan biyo iyo caanaha siin jireen dhulka dhirtan bay ka soo baxayeen mayna deganayn meel ay degan yihiin maana arag. Land, homes and crops are deliberately destroyed. haddana gabadhii markii la laaday baa gabadhii la qabtay xamaga la qabtay markii hore xamaga markii la qabtay gabadhii waxay tidhan wuxuu ma arkin ma maqal wuxuu ilaahay ugu yeeray sheegayaa bit waa la diiday halka istaag baa la yiri way fadhiisatay halka markay fadhiisatay waa halkaana la wada fadhiisiyay suudii bana la fadhiisiyay aqaladii baa la qaaday aqaladii baa la wada gubay 4 aqal baa la gubay aqaladii baa dab la geliyay waa laga soo noqday kolka aqaladii laga soo noqday waa dhinacna looga bixiyay xabad baa lagu dhuftay xaafadii midna way qabteen way toogteen hortanadii ku toogteen oo laashay ayga yaraani saa qabteen horteeda ku toogteen aniga umulo ilmaha gudubsa ugu wata way soo kaxeeyeen ani cunugeyga waana la kala geeyay ani waxa la geeyay meel goda oo nin la gowracay ku jiro yaan afar bari iyo afartoodii min afartoodii dheerood ku bariyay markaan ku bariyay waa la yiri ama sida ninkaadan ku gowracay ama wax sheeg ana ilaaha khaalaqaygooga ama gowracaas nafta isna uu lahaana waan leeyahay saad u gowracayni gowracaman ku dhax afar bari waan cunugeygu meydkii korkiisa fadhinay la gowracayeen xitaa xabad lagu dhufanayna midida inta lagu kirk xaggan kor laga kirkiray say korkiisa iskar oo leeman gaar kale fadhin isagoo safar u kacay oo markaas bacadla ahaabay halkaa ku dileen meel agteeda ah maxay ahayd uu ka yar horeeyay waxaa la dilay aabahay 12 jirkaygii baa la dilay 2 sano waqtiga ka dambeysay meel dir dhabaagteeda oo ka yar sokayso halkaas ku dileen aabahay Ethiopia ay jeelasha iyo gumaadka iyo dadka soo arkay siiraadan ee tagtaan hadda Ethiopia marka tagtaan dadka waa la kala xaseeya jeelka waa laga soo guri wadaada wali islaanta ilmaha caruurta ta umushay tan nabar kale waa la guri gaari baa dadan baa lagu guri hool baa lagu xaseyn hool baa lagu gumaadi intay iyaga hadafkooda haysata ee iyaga jecel ee hadirada qabsadeen ee aan waxba ahayn ee iyaga aha hadirada inta waxay dhahayaan goordho kuwan weytay markay tagaan ana waan idin gowrici hadda wuxuu sheegtaan markay sa u dhaqaqaan ana waan idin gowrici markay hadda waxaan fiicnin mooy hadda ximin nagu sheegtaan in caalamada naga Ethiopia nala soo arkaan oo dadka soo daayay la dhaho oo dadka la arko dadka way kala xaseeyaan bariga intaan jeer ku jir 2 jeerood bay hay'adda xuquuqda bini'aadamka u dooday noo timid hadday noo timiday waana la kala xaseeyay annagoo 1900 oo ruux ah jeelna lagu xaseeyay annaga ma ehelkay iyo reerkana iyo walaaladay waa la joogay laakiin dhibaatada Ethiopia aad iyo aad u farabadan marka Ethiopia aad iyo aad bay dhibtay markay aabahay dishay
waan waxba aanan qaban karin waan u xumaaday markii dambe walaalkii way dishay markii dambe adeerkii way dishay markii dambe aanay xidhay marka dhibaatooyinka faraha badan bay imaanayay marka noloshaydu aad iyo aad bay isaga xumaatay ruux kasta oo ahaa dhulka jooga ogaadeen gudaheeda cid ku nool ogaadeen u dhalatay gumaysigu meeshuu joogo ruux walba u haystay ما dad soo baxsaday anagoo kale iyo kulay dadka ku aan soo baxsanin iyo ku soo baxsaday waa la wada laynayo cidna lama daynaynin si ani iyo in de soo baxsatay waan Ethiopia ana wayna gumaysata dawlad baydinta xeebalin anaga dawlad Ethiopia nooma dawladna xasuuqna gumaadana gowracaan dadkanaga rugtay weeyaan ma hadii dadkanaga kala sariigtay dawladdu waati dadka sharfisa waati dadka soo dhaweysa waati waxaysa anaga Ethiopia wayna halaagtay Ethiopia laga qabtaan leena anaga Ethiopia anaka yaan ka codsi ka taaganay Ethiopia laga qabtaan anaga codsi ka taaganay murugiyo ciil baan taaganay wadankayga markaan soo xasuusto maskaxda waxay dhimaya markaan wadankayga soo xasuusto murugada ومسكها وحيد ما يا قبلي يا محابستي مركان صح يستوي ويدشي